Salaamullaahi calaykum dhammaan walaalahayna qiimaha badan soo dhawaada muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa 5 ciyaaryahan kuwaasi oo u soo saftay naadiyada sida weyn u xifaaltama ee loo yaqaano Liverpool iyo sidoo kale Manchester United. Halkan waxaan kula wadaagi doonaa 5 ciyaaryahan kuwaasi ay u suura gashay inay soo wada xidhaan labada naadiyood ee sida weyn u xifaaltama Manchester United iyo sidoo kale Liverpool. soo dhawaada muuqaalkan. haddii ayna ku bilowno kaalinta shanaad waxaa soo galayo ciyaaryahanka loo yaqaano Tom Jolton ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee wada matalay labada kooxood ee kala ah Liverpool iyo sidoo kale Manchester United. daafaca lagu magacaabo Jolton ayaa Liverpool ku soo biiray sanadii 1940 kadib 8 sano oo halkaas ku sugnaa ayuu ugu dhaqaaqay kooxda Liverpool, naadiga sida weyn u xifaaltamaan ee loo garan og yahay Manchester United. sanadku markuu ahaa 1912 waana ciyaaryahankii ugu horeeyay ee wada xirta maaliyadaha Liverpool iyo sidoo kale Manchester United. kaalinta afraad waxaa soo galayo ciyaaryahanka loo garan og yahay Phil Chisnell waa ciyaaryahankii ugu dambeeyay ay si toos ah u kala iibsadaan labada kooxood ee Liverpool iyo sidoo kale Manchester United markii uu ku biiray naadiga Liverpool 1964 kadib heshiis ay wada gaareen kooxaha Liverpool iyo sidoo kale Manchester United ayuu kaga dhaqaaqay kooxda Manchester United kooxda loo yaqaano Liverpool. Chisnell ayaa u saftay in ka badan Manchester United 50 kulan una dhaliyay 10 gool intii uu halkaasi ku sugnaa. si kastaba ha ahaatee kuma uusan guuleysan inuu Liverpool saameyn weyn ku yeesho, waana mid ka mid ah kuwa u soo wada ciyaaray Liverpool iyo sidoo kale Manchester United. kaalinta saddexaad waxaa soo galayo ciyaaryahanka loo yaqaano Peter Beardsley ayaa waqtiyo badan ku soo qaatay kooxda Manchester United, hase yeeshee uma aysan suura gelin inuu guulo waaweyn la gaaro Manchester United, isagoo uga dhaqaaqay kooxda kubadda cagta ee loo yaqaano Newcastle United inkasta uusan halkaasi ku sii raagin. laakiin sheekada xiisaha badan waxay ahayd markii uu ku biiray naadiga loo yaqaano Liverpool ee ay si weyn u lalamaan kooxdiisii hore ee Manchester United. Beardsley ayaa kaga dhaqaaqay naadiga loo yaqaano Newcastle United naadiga Liverpool 1982 sanadku markuu ahaa. Beardsley waayihiisa Liverpool ayaa waxa uu u saftay in ka badan 161 kulan isagoo u dhaliyay 46 gool, waana mid ka mid ah kuwa naadirka ah ee u soo wada ciyaaray naadiyada sida weyn u lolama ee Manchester United iyo sidoo kale Liverpool. kaalinta labaad waxaa soo galayo ciyaaryahanka loo garan og yahay Paul Ince inkasta oo uu kula guuleystay Manchester United Premier League 2 jeer iyo sidoo kale FA Cup, haddana ma ahan mid laga jecel yahay gegada Old Trafford ee ay ku ciyaarto kooxda loo yaqaano Red Devils. sababtuna waxa ay tahay kadib markii uu ku biiray cadowgooda Liverpool 1997. Ince waa ciyaaryahanka kaliya ee kabtan ka soo noqday labada naadi ee sida weyn u lolama ee loo kala garan og yahay Manchester United iyo sidoo kale Liverpool, waxaana u suurta gashay inuu wada xirto ciyaaryahankan maaliyadaha Liverpool iyo sidoo kale Manchester United. kaalinta koowaad waxaa soo galayo wiilka loo garan og yahay Michael Owen waxa uu ahaa wiil cajiib ah kaasoo u ciyaaray kooxda loo yaqaano Liverpool, waxa uuna ku qaatay waqtiyo aad u qurux badan intii uu ku sugnaa halkaasi, waxaana u suura gashay inuu ku guuleysto jaa'isada weyn ee loo yaqaano Ballon d'Or. hase yeeshee kuma uusan sii raagin si joogitaanka naadiga Liverpool, isagoo kaga dhaqaaqay naadiga loo yaqaano Real Madrid ee ka dhisan cariga Spain. si kastaba ha ahaatee intii uu ku sugnaa naadiga Real Madrid ma uusan helin bandhigiisii quruxda badnaa ee hore looga bartay, sidaa darteed waxa uu doorbiday mar kale inuu dib ugu noqdo horyaalka Premier League isagoo ku soo biiray naadiga loo yaqaano Newcastle United. hase yeeshee ma uusan ku sii waarin oo wuxuu mar kale kaga sii wareegay naadiga sida weyn ay u xifaaltamaan naadigiisii hore
ee loo yaqaano Manchester United. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu waqtiyo badan la soo qaatay naadiga Manchester United, taasi oo aysan ku farxin taageerayaasha Liverpool markii ay arkeen isagoo xiran maaliyadda Manchester United. Sidaasina wuxuu ku noqday mid ka mid ah kuwa fala-ku-tiriska ah ee ku ciyaaray labada maaliyadood ee Liverpool iyo sidoo kale Manchester United.